Shalay waxay ahayd maalintii iigu yaabka badneed noloshayda. Waxaan tegay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde anigoo ku sii jeeda magaalada Baydhabo. Waxaan garoonka gudihiisa ka maqlay cod haweeney qaylinaysa oo sheeganaysa in laga xaday taleefankeedii. Anigoo raba inaan caawiyo ayaan ka mid noqday dad haweeneydii ku soo xoomay. Hase yeeshee markii ay aragtay taleefankeyga ayay la soo booday, alla taleefankeygii waa kan uu wiilkan wato. Dadkii ayaa hal mar isoo wada eegay, waan isku naxay, waxaana garan waayay waxa aan sameeyo. Kadibna iyadoo ku qaylinayso alla tuuga iga qaada taleefankeyga ayay ku dhagtay kuleetigeyga, waxayna indhaha iiga shubtay dharbaaxo gududisay wejigayga. Dadkii meesha buuxay ayaa iyaguna i garaacay. Kadibna anigoo naftu igu daba yar tahay ayuu iga soo gaaray nin booliis ah oo iga celiyay. Kadibna wuu i wareystay, waxaan anigoo ilmeynaya oo wejigeyguna i bararsan yahay u sharaxay sida ay wax u dhaceen. Wuxuuna labadeenaba noo kaxeeyay xarun ay booliisku ku dhex leeyihiin garoonka. Ninkii booliiska ahaa ayaa haweeneydii taleefan u dhiibay, wuxuuna ku yiri horta bal wac taleefankaada. Way wacday, waxaana ka qabatay gabadheeda oo u sheegtay in taleefanka guriga uga tagtay. Mar labaad ayay ilin iga soo daadatay, waayo waa la ii bahdilay oo tuug ayaa la iga dhigay, waxaana iga tagtay diyaaraddii aan raaci lahaa. Ninkii booliiska ahaa oo ka xun wixii igu dhacay ayaa haweeneydii faray inay iga raali geliso, nabsiga ayay iga gashay. Kadibna waxay iyadoo ilmeynaysa iga codsatay inaan cafiyo, waxayna boorso ay garabka ku wadatay ka soo bixisay jeeg bangi, waxayna ku qortay $5,000 Mareykanka. Kadibna inta saxiixday ayay ii soo taagtay iyadoo ilmeynaysa. Si aan uga qaato ayaan gacanta u taagtay, hase yeeshee waxaan indhaha faraha ka geliyay walaashayda oo agteyda jiiftay. Walaashaydii intay naxday ayaa hal mar qaylo ku dhufatay. Markaas ayaan indhaha kala qaaday oo ogaaday inaan riyoonayay oo aan jiifo sariirteyda. Shaqadani haddii ay kaa qoslisay ku sii sheer garee saaxiibadaada. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.